ومسألة يا شيخ markii aan ka soo tagnay dhibaatooyinkan cusub ayaa hadda jiro waxaan rabnaa si guud inaan uga hadalno tahriibka oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaato weyn ku haya jidkan dheer ee Suudaan Saxaraha Liibiya Baddi ilaa Talyaaniga laga gaaro si guud ahaan qofkan soo tahriibay dhibaatadaas asagoo ka warhayo jidka dheer ee Suudaan lacagta badan ka baxaysa noloshiisa inuu noolaado u gudbo ama inuu dhimanayo labadaas mid ay u kala cadeen oo labadaas mid uu noqon doono oo mararka qaar laga yaabo inta badan inay dhibaatooyin xataa hadaysan dhimanin inuu soo gaaro marka diinta islaamku waxay ka qabtaa qofka soo tahriibaya naftirkiisa asaga bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa maa bacd horta maxamuud markii la yiraahdo xukun sharci ah laga hadlo xukunku hal xaalad kaliya la siin maaye silsilada safarta dadka safraya dadka safrinaya waxa la kala qaadanayo meesha loo socdo intaba saameyn bay ku yeelanaysaa dadka tahriibayaasha soo safrayay marar badan ama inta badan dariiqan Suudaan ilaa Saxaraha Liibiya ilaa kadib badda ku safrayay oo wax la dhihi karo ama carabiga lagu yiraahdo mukhaatara binafs naftii oo khatar la geliyo oo meel gebi ah laga tuuro taasi si qaabo badan bay leedahay oo wada qaar badan oo xuduudaha Itoobiya ka soo gudba rasaas baa lagu furaa qaar baa ku dhinta shaqalka baabuurta ee halkan ka dhacayana qaar badan baa sida ku dhinto aan qaaligan ka soo gaaray qaar badan goobjoog ka ah in kale saxarahaas ay ku leedaan oo qaar oon laayo qaar intii lacag laga waayo la dilo qaar kooxaha Liibiya islaynaya hubka haysta gacanta u gala oo rag iyo dumar inta leh inta ugu dambaysa badda marka ay tagaan badda doona la kiraysto oo naaqudayaal iyo jihadihii iyo ma jiraan inta ka warqabo qof asiga kamid ah kulido barbarada la barbaraya jihadihiina waa loo dhiibayaa intaas oo qof oo islahayn isa qonna doonta waa lagu gurayaa waa la dirayaa ama jihadii haydin la aado ama haydin la lunto cilad hadday gasho ma yaqaanaan si u bixiyaan jihadu hadday yar wareerta si u baxaan ma yaqaanaan saas darteed waa wax la dhihi karo ghalabatu dhannigu inaan la badbaadin wey inaha marka la isu geeyaye inta haddii miisaan sharciga la saaro camaliyadan iyo maritaanku xaaraan buu noqonayaa waxay diraysaa qaybtii qur-aanka ay ku yidhi walaa tulquu biyaydiikum ila tahluka naftiina meel halaaga ha ka tuurina nafta khatar in la geliyo waxaa la ogol yahay wixii fi taacati illaahi maadaama ammaano ay tahay ilaahay lagu caabudo loogu talagalay wixii aan ahayn in khatar la geliyo maharakada lagu tuura lama ogola walidaalika nabigeenana xadiis baa ka sugan sala allahu alay wasalam macnahaas oo kale tilmaamaysa waxaa ka mid xadiis abu daawud uu warinayo haddayna xasuustaydu si kala noqon cali ibn shaybaan in la yidhaha radiallahu canhu ardaa uu leeyahay nabigu wuxuu yidhi ninkii guri meeshiisa sara barya aan gidaar celiya lahayn faqad bari'at minhu dhimma guriga sadxiga kore ee siman hadduu seexdo oo uu siman yahay darbi hadduu isgadiyo celiyana uusan lahayn dee hadduu isgadiyana dhacaa waay naftii khatar la geliyay wuxuu gaarsiiyey nabigu faqad bari'at minhu dhimma dimadii ilaahay way ka bari noqotay oo tilmaamaysa inuu dhaqan xaaraana sameeyey waayo naftiisii buu khatar geliyey waxaan sidoo kale nabiga ka soo codsanaa badda lafteeda haddii saxaabada qaar laga wariyo isna saxiixa wuxuu oranayay ninkii badda fuula xiina tartaju markay kacsan tahay fahalaka faqad bari'at minhu dhimma ninkii badda fuula markay kacsan tahay oo sidaa ku halaagsan oo ku dhinta dimadii ilaahay beri bay ka tahay xilligayna kacsan tahay khatarteeda waxaa badan in lagu baaboo waxaana yar in laga badbaado waxay xadiidka ciladiisu noqonaysaa xilliga uu galayo waxaa lamid noqonaya qaabka badan uu u galaya hadday tahay qaab sida badan aan qaabkii lagu badbaadi jiray ahayn sidaana uu ku halaagsamay dee qofkii adduunna ma hayo aakhirana ma hayo faqad bari'at minhu dhimmatu ninka la yidhi hariiqii biyaha ku baktiye waa shahiid la yidhi ma aha shahaadadii ma aha tani waa tii faqad bari'at minhu dhimmatu la yidhi ee dembiga ahayd adduunyadiina waa ka tegey ka tegitaan uu ku dambaabayu tahay saas darteed qofka muslimka ah looma ogola naftiisa inuu khatar iyo mahlakadaa geliyo
keliya waxaa la ogolyahay wixii nafta dhibaya ilaa xuduud wixii daacada ilaahay xaqiijinayo masaa'ilkii jihaadkii lamidka ahaa tan laakiin dunya raadinteeda intaasoo khatar loo marayo saxarahan lagu baaba'ayo meeshan dadka markhaarka lagu adoonsanayo bilmunaasaba maan dhaweyto taxi baan raacay nin wadanka sudaana waxaan weydiiyey wadanka libiya dariska yihiin lacag badan buu leeyahaa la yiri maxay u shaqatay weydeen ama arrintan aan baarayay wuxuu yidhi saaxiibada waa iiga sheekeeyo ka yimidu lacag waa laga helaa laakiin saabaa u dhaqaaqda waa lagu qabana waa lagu garaaca waa lagaa qaadanaya haddaa iska adkaysana bilaa lagu shaqaysana waa lagu sii deyna maxay tari weye lacag intii laga garaaca laga qaatay dadkiyada lacag taa la garaaca oo la adoonsada oo lagu shaqaystaa haddaba waxaan rabaa inaan iraahdo intaa keliya haddaan qiimayno mukhaatarada nafta mahlakada lagu